jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa marka hore dhabaalkiisa uu salaan iyo mahadnaq u soo jeediyay xisbiga qaran ee Fruud waxaana uu yiri aniga oo qaba dareen farxad ay ku ladhan tahay iyo mahadnaq aan la soo koobi karin ayaan inila hadlayaa munaasabaddan shirka guud ee aan caadiga ahayn ee xisbiga Fruud madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu xasuus gaar ah u muujiyay oo eebbe ka baryay inuu caafiyo gudoomiyaha xisbiga Fruud mudane Cali Daawud oo ku magac dheer Jean-Marie waxaana marka xigta uu mahadnaq u soo jeediyay xubnaha sare ee Fruud iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga ee isku yimid kulankan caadiga ahayn ee aadka u muhiimka ah madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu yidhi is-abaabulkiinan iyo kalsoonida buuxda ee aad muujiseen runtii aad ayay ii taabanaysaa waxaana jeclahay in halkan iniga mahad celiyo oo ay nii muujiyo jacaylka aan inii qabo madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu carabka ku adkeeyey kaalinta hogaamineed ee shurukada xisbiga RPP iyo Fruud ee ku aadan buu yidhi xoojinta midnimada qarankeenna midowgeennani kaliya ma aha buu yidhi mid taariikhi ah amaba siyaasadeed waa lafdhabarka xasiloonida amniga midnimada iyo horumarka dalkeenna madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu intaasi ku daray isaga oo ku tilmaamay isbahaysiga RPP iyo Fruud inuu yahay miradhal ka soo baxay go'aan geesinimo leh aragti istiraatiiji ah iyo go'aan wadajir ah oo lagu adkeeyay buu yidhi horumarka bulsho dhaqaale ee dalkeenna madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu yidhi waxyaabaha guusha u ah ee maanta laga dhaxlay buu yidhi isku tagga RPP iyo Fruud waxaa ka mid ah nabadda horumarka iyo wadajirka qaran ee dalkeenna uu ku caanamaalayo waxaana uu si ballaaran u maamusay oo u ammaanay xisbiga Fruud ee sida kalsoonida iyo daacadnimada mar walba ugu shaqaynaya qarankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu xusay sidoo kale inuu mahadnaq u soo jeedinayo idaylaba xubnaha kala duwan ee xisbiga Fruud iyo dhammaan taageerayaasha faraha badan ee goobta isku yimiday waxaan iniga mahad celinayaa buu yidhi kulankan aan caadiga ahayn iyo iskugu timaadeen si aad taageero igu muujisiin